إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله. الدنيا waxaa la arkaynin malahan waa ka xumahay gabadha umusha ah ee dalka Mareykanka ninkeedii ku gowracay oo dilay gabar umul ah oo dhashay oo sariirta saaran oo waxaan ku iri waxba iska celi karin oo iyada yaaban ayuu toorey qac ku sii. Subxaan Allah. Ilaahoyo adanka magan ya rabbi ya raxmaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalahayga aan jeclahay waa walaashii Naciimo Ugbaad, channelka aad daawanaysiina waa Ugbaad official. soo dhawaada kaliya laab reena iga dheh ma garateen, subscribe ka saara, gambaleelka furta, la gareeya, share gareeya, naana ka sii comment gareeya ma garateen. waana ku mahadsantihiin, mahadcelintiinina kama daalo ma garateen, waana ku mahadsantihiin kun jeer iyo kun jeer. mahadsantiin maanta dhadaan ina dhahan kama daalay kaliya laab. walaahi waa farxaa marka arko dad igu soo biiraaya, waana dareemaa oo waan arkaa maasha Allah. kaliya laab walaalahaygaan jeclahay. runtii waxaan aad iyo aad uga xumahay gabadha Mareykanka lagu dilay. gabadha Mareykanka lagu dilay ee ninkeedu dilay ee toorreynta u qaatay mid ahaan uga cararo ka tagay. xaguu ku badbaada, xaguu ku fakanaya? Mareykan la joogaya. Mareykan inuu ka badbaadayo miyuu mood? Mareykan inuu ka badbaado Ilaahay uu ka badbaadaya. yaa xuquuqa kugu dhacda Ilaahay kaaga bariyay muxuu ka dilanayaa? waa gabar baariyo masaakiin ah oo micnaha la yiri dadka dariska xitaa waxay dhahayeen wuu bedeli jiray ayadoo uur leh iyo ayadoo umulo iyo ayadoo weligeed buu naanaada ka sii jiraa. yaa waa la isdacweeyay qaba wax soo tiila la booliska. yaa wallaahi bilawanya ilaa ku dhaartay naxdin goor marka arkay isbitaal jiifta waa sakaraad kumana jirto kumana dhicina laga soo warinay ma garateen. walaalayaal gabdhiin waxaa la leeyahay ajnabi maxay u guursanayaan, maxay u kala cararayaan? waa waxaan oo kale annagana waxaan dhahnaa jooga Soomaalidana wax ka fiican ma lahan, guursada idinka aftaqaanin, ayagaa ilmaha inka qaadanin, ayagaa muxuu ahaayay dee waa kaasaa hadda ka horna mid baa Jarmal ku dilay, mid baa Faransa ku dilay, mid baa Soomaaliya ku dilay, mid baa maaragtay maxay tahay dilkaan? maxaa ku dilaysaa? maxaa xaasaskiin u dilaysiin? yaa mise darooga cunaan oo way cabaan. nin iimaan leh intuu middo soo qaato gabadhiisa umula kuma gowracaayo mana dilaaye talo balaayo soo cabaa umalay. taas waa cabsan yahaan in aaminsanahay. jiir naxana kuma yaalo duu marcabo dee jiir naxama ku yaalo. yaa muxuu ka naxayaa? waxaa u sawirmaya dhiigga iyo dad inuu laayo iyo darooga iyo baktiya u sawirmaya. yaa xabadiisii ka bilaabay. laba cunug oo dhashay wiil gabar oo leedahay, gabar kalena hore u soo dhashay la yiri gabadha. yaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa uu baryayaa inuu ilaahay caafiyo inkastoo laga soo deyrinayo, laakiin naftaan dee iyadoo saas looga deyrinayo baa kuwa xayi ah horteed dhiman karaan oo meelna loo soo jooga aanan garanayn. ilaahay xayi dilo waaye, xaraarib nooleeye. yaa waaye ilaahay subxaanahu wa ta'aala. laakiin qarrace ka leedahay leeyihiin dadkii agjoog oo maaragtay laga wareysanayay ayadoo qarrac dhaysay haddana ka bogsan karta oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka kicin karaa. ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ka kiciyo oo ilaahay caafiyo, waayo ilmahaas yarka oo saqiirada gaalada way qaadanayaan ma garateen. gaalada daf bay siinayaan oo waa inta ay rabeenba ayaga ku farxayaan ma garateen. asagii waxaa leeyahay uu qaato baryaha hargeyra ahaa ilaahay caafiyo. dadkan maxaa la dhihi jiray asagiina gabadha soo u dilaayay inay dhimato oo mid ahaan buu uga tagay. arxan daranaa alla arxan daranaa alla arxan daranaa warumul maxay iska celi kartaa? yaa xaqi ku soo qabay ilaahay baan kaaga bariyay, ilaahay ku soo qabay, ilaahay buu ku soo qabane. yaa marka lagu soo qabto cawadkaaga la yeerina adigana maxaa ku dilanaysaa? maxaad u ceyrsanaysiin? waa umul masaakiin waxay iska celin kartee. yaa wax daran intay soo cabaan baa bahal iyo balaayo ku soo socda u sawirnaysa markaas dilayaan. ninaa dhihi jira sankaa ii dheer laamiga markuu gooyna saas u leedahay waa yaabi jira. waxaan leeyahay waxbaa dheer muxuu ugu hayaa ninkaa? yaa laamigii waxaan ku iri wadadii fiican u leeyahay godka anaan ku dhacdhaca iga wareega godna kama qodno. waa indhihiisa balaayadu cunay
maandooriya oo laqay baa u sawiraaya marka dadka maandooriyaha cuno yaa ha la iska ilaaliyo because dee adigooba god kuu malayna tuuro iyo bahal ku soo socdo markaasuu ku dilayaa ma garatay marka gabadhaas ilaahay subxaana watacaala ha ka kiciyo dadka way ka dayrinayaan balse laakiin ilaahay waxba lama aha inuu ilaahay intuu booga dhayo ee soo kacdo ee ilmaheeda haysato ee gurigeeda kusoo laabato oo ninkaa xunkaana xabsi abadan naanaa ugu siiyo ma fahanteen oo jeel abadan lagu tuuro ku wanaagsanaan laheedaa insha allahu laak waa la raadinayaa waana la baafinayaa magaciisa saddexanaa meel walba la wareejinayaa ilaahay ha soo qabto insha allahu tacaala tuuree ku lahaa daraad maxaa arkayay ku kaloo isagana muxuu ahayti ilmihii ka qaata gabadha oo idan naas muujinayo ka dafay ma garateen marka walaalay wallaahi waa badan yihiin dhibaatada waa badan tahay naaga wax dishe sanadadan daba lama maqli naag baa wax dishe oo ninka cararta iyo horta inay naagii naxariis dumarkeena ay naxariis keliya noqdeen oo ragga dhurwaaya noqdeen raggana iskuba jiraan mid iimaanna baa ku jire yaa qaarka wax kufsaday iyo ku maarta qalbi ka kufsaday iyo mid tuure u qaatay iyo mid caadi u kufsado ay wada noqdeen bahala cunaynay noqdeen wallaahi bahalay noqdeen ilaa ku dhaartay dad cunay noqdeen gabadhaada yarta ah oo masaakiinta ah oo meesha ku ah dilaa hadda aniga ma hayno ilaa haddee nin baa la dilay oo naagta ka carartay saakuma soo dhacayse ilmaaga aabaho nahi waa sidan wuu la guursada iska daa waa sidan waa maseeri uun waxbay yah ma dilaan ma ceyrsadaan ninkaygii bay ku leedahay idinka toorey dhac meel walba qaananka meel aanan ku dilin oonan ku qalin ma jirto acuudu bilaa mid ingiriiska waa la ogaa ninkiioo fiican oo faraxsan xaaskiis ka tegay markuu yimidna jikadii iyadoo baby honey cashaan kuu soo wadaada ku hayso yah buu guriga toorey intaasoo sano taale hadda waa intaasoo sano intuu ilmaha ka dhalaaya tooreys iyadoo usoo tuntaba laakiin ilaahay muxuu qadaray marka ugu dambaysa inuu bireeyo qalo sababtu usoo qabtan lama yaqaan waa xiran yahay laanta asagan yah marka la weydiiyo wuxuu yiri tooreydaas in badan baa rawiil inaan dilo wayba ka tustaba gurigiina yah waxaan ku yiri oo maamule oo hagaajinay cunto u diyaarinay gadaal inta kasoo istaaga haa baby macaan inta dhuusurka qabto arac min bireey dhac cashada ay soo waday ka dhacay walaalayaal aamiba malehe warbal toore iyo balaayo baangada guryaha ka fiirfiiriye markaa galaysiin armaajadiisa faga bistoolad ka fiiriye baangad ka fiiriye burus ka fiiriye acuudu billaahi min ashaytaan maxaa kawska yaa si loo joolas kawina miya acuudu billaahi ilaahay nadan ka maangan rabbi raxmaano nin wax dilaa هرام ساكن تنا إلهي أبوي ربي ورحمانه إلهه عافي إلهه المهد وعافي وسوتوس يا ربي يا رحمن يا كريم يا الله ولا هذا أظن حوالي قراضة الماء زركا كسينا حدنا يا الماء يريركا آذي وفرحان قال ضفي الصنايع أبوهن واد للي والحرا أيضا واتكتال لي مقرتين لكن إلهي وحن كبريا إنسان إلهي قادر إلهي كبريا يا والمهد وسعليو ربو إذن كان يسكو حشاضة انت حسو عبتي ناقينا قراعينا الدلنينا حقالين حبرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قوان كتاقا دا هيلب قدو ربتين بلاين عرفتي قوان آو واسو صعدا الله وده كيدي جرق ورق نعصطة ده وتراقا نينكو وقدسا عرفتو قتشعبو سي سنين 4 دي ولا يساي أحدنا وقورعي مكاش عارف صوتا سنقرموا يعني وصوري جيميل وقيقاري وافرحا إيلكو أقاو بدنا لما تريم قالوا نكخب أنتم مسلمين نكخب ربي ورحمانه إلهي سبحانه وتعالى عافية وداس وكنح والله إلهي عافية تيشير قريوة ولا شيء أبدا في شيء أننا ناقصية مقرتين ولا ريالو دعيست بالبسم كي